رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ajwada annaas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. ibnu cabbaas isaga iyo aabihii cabbaas ibnu cabdilmutalib ilaahay raalliha ka ahaadee waxa uu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahaa kan dadka ugu deeqsisan wuxuuna ugu sii deeqsinimo badnaa ramadaanta dhexdeeda marka uu jibriil la kulmayo wuxuuna la kulmi jiray habeen kasta oo ramadaan ah oo wuxuu la naqtiimin jiray qur'aanka waa rasuulkii alleh oo sala allahu calayhi wasalama wanaagga ugaga deeqsinimo badan dabaysha la diray waxaa wariyey bukhaari iyo muslim. dabaysha la diray waxaa loogu shabbahay ama loogu ekaysiiyey joogtadeeda dheeraynteeda iyo sida nafcigeedu u haleelo cid kasta oo ay gaarto. kan nebiguna sala allahu calayhi wasalama sifooyinkaas oo kale ayuu lahaa. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا